waxaan odhan karaa cid inagaga horeysa kubadda cagta Afrika aad u yarta mar walba waxa taagnaa gaadiid wasaaraddu leedahay oo qaadayay ciyaartoyga oo geynayay dhakhtarrada oo aan uga mahad celinayno wasaaradda caafimaadku in aanu markaan isbitaalada soo gaarsiinay si fiican loola shaqeynay tartankii gobolada Somaliland oo imika ay ugu dambeysay markii ugu dambeysay la qabto 2020 tartankaas qudhiisa bal goorma u qorshaysan qabataan iyo tartanka xog ugu dambeeyay ma jiro dalalka jaarkeena ah oo 7 goraan artificial grasska u yaalo iyadoo ay aqoonsan tahay FIFA oo ay dhigtay roogaga badankooda garoomada Soomaaliya 2 garoon buu yaala bulshadu waxay isweydiinaysay khilaafaad baa u dhaxay wasiirkii ugu dambeeyay iyo waliba sidoo kale agaasimaha guud ee Cabdirashiid Caydiid maarintaas maxay kaga jawaabtay ciyaartoy baa lagu ganahay dad taageerayaal baa lagu xidhay dad baa maxkamad lagu geeyay waxba laga qabtay si wanaagsan wax looga qabtay xiriirka kubadda cagta dastuurkiisa ana qoray dastuurka xiriirka kubadda kolayga ana qoray dastuurka ciyaaraha fudud ana qoray sharciga ciyaaraha kubadda cagta lagu dhaqaa ana qoray garsoorka ana tababaray jaangoynta kooxaha ana sameeyay waxaan ahay mas'uulka labaad ee wasaaradda kula wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdirashiid Caydiid Yaasiin ee uu soo dhaweynaya ugu horeen waxaan kugu soo dhaweynayaa KF Media TV aad iyo aad baan u dhawahay waad ku mahadsantihiin maanta inaan imaaday studio-ha KF Media saaxiibka Ciise Tooni oo bahda ciyaaraha nagala midana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa inaad maanta soo casuuntay agaasime waxaad joogtaa wasaaradda runtii ka mid ah wasaaradooyinka ugu shaqada badan ama ugu saameynta badan ee wasaaradaha Somaliland waana wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo lagu tilmaamay yihiin 170 bulshada Somaliland bal nooga warbixi qaabka ay u shaqeyso wasaaradda ciyaaraha iyo waliba sidoo kale waxyaabaha idin qorshaysan bismillaahir rahmaanir rahiim wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaa la aasaasay 2000 bishii February waqtigii ka horeeyay waxa ay ka mid ahayn wasaaradda kale 19 ilaa 2000 bishii February wixii ka horeeyay waxa ay ka mid ahayd wasaaradda waxbarashada dhalinyarada iyo ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland waxay ku aasaasan tahay xeer number 71 2015 xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha oo ah xeerka ay ku aasaasan yihiin badiba hay'adaha dawladda ee fulinta ama xukuumadda waxa kale oo ku aasaasan tahay xeer nidaamyaha 2018 ee uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo sheegaya waajibaadka iyo xilka ay wasaaraddaasi u hayso qaranka Somaliland wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay ka kooban tahay 9 waaxood oo ay man yihiin labada waaxood ee waaxda dhalinyarada iyo waaxda ciyaaraha waxa kale waa wax support ah waaxda qorsheynta waaxda maamulka lacagta waaxda shaqaalaha waaxda ICT-ga waaxda sharciyada waaxda garoomada waaxda horumarinta ciyaaraha hablaha iyo wixii kale ee la midka ah waa support laakiin labada waaxood ee mainka ah ee mandate-keedu yahay waa dhalinyarada iyo ciyaaraha ciyaaruhu waxay hoos yimaadaan baahida dhalinyaradu ay leedahay marka wasaaraddan waxay u xilsaaran tahay koow waa dhalinyarada ciyaarahana waxa weeye mas'uuliyaddeeda qayb ka mid ah laakiin ciyaaruhu waxay ka mid yihiin baahiyaha dhalinyaradu ay qabto ama ay u baahan yihiin runtii wasaaraddu waxa ay leedahay siyaasadda dhalinyarada oo ay ku xusan yihiin baahiyaha dhammaanba dhalinyaradu ay leedahay ama mudnaanaha ay siyaasaddu siinayso Somaliland dhalinyarada ciyaaraha waxa kaloo jira oo ay wasaaraddan ku shaqeysaa barnaamijka xisbiga kulmiye oo qayb ka mid ah ay xusayso horumarinta xukuumaddani ay xukuumadda xisbiga kulmiye gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sida uu doonayo in uu horumariyo muddada xileedkiisa dhalinyarada ciyaaraha oo ah arrimaha aasaaska ah ee ay wasaaraddu ku shaqeyso maadaama madaxweynuhu yahay cidii hagaysa xukuumadda waxaan uga mahad celinaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
in uu ka mid yahay uu yahay xukuumaddii ugu weyneed ee mudnaanta siisay muddadii ay somalilan jirtay oo ah madaxweynihii shanaad inkastoona odhan karno madaxweyne kasta dhalinyarada iyo ciyaaraha in wax laga qabto waa jirtay laakiin waxa ay aada iyo aada kor u kacday muddadii uu madaxweyne muuse biixi cabdi hayey taas oo ku caddayd barnaamijkiisa xisbiga kulmiye ama xukuumaddiisa intaana iman xilligii uu tartamayey markii uu yimidna fulintiisii loo dhaqaaqay waxaa kaloo sal u ah marka laga yimaado xeerka dastuurka jamhuuriyadda somalilan oo isagana xusaya dhalinyarada inkastoo aanu si wanaagsan ama si weyn aanu u xusin haddana meelaha wax laga qabanaya inay tahay waxaa kaloo ay ku aasaasantahay sidaan soo xusay siyaasadda dhalinyarada oo arrimaha ay wax ka qabata ama ay ka duusha ay ka mid tahay oo siyaasadda dhalinyaradii ay xusayso 12 mudnaanood oo dhalinyarada wax lagala qabanayo shaqo abuurka waxbarashada ICT-ga information technology-ga security-ga nabadgelyada caafimaadka ciyaaraha gender equality-ga ama sinaanshaha in fursadaha hablaha iyo nimaduba u sinaadaan waxa weeye institutional capacity building in kor loo qaado hay'adaha ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada 12 mudnaanood baa iyaguna jira culture-ka iyo sports-ka iyaguna waxay ka mid tahay arrimaha ay wasaaradani ku shaqeyso waxa kale oo jira faracyo wasaaraddu ay leedahay oo la shaqeeya waxaa jira xiriirada kala duwan oo iyaguna fuliya arrimaha ciyaaraha oo gaar ah waxaa jira hay'ado badan oo iyaguna local ah oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada oo ay sooyin ka mid tahay oo line ministry ay u tahay wasaaradani iyo hafayooka ka mid tahay iyo ururo badan oo aad u badan oo dhammaantood ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada ay wasaaradani u tahay line ministry isla markaana ku shaqeeya dhammaantood siyaasadda dhalinyarada somalilan waa mahadsan tahay agaasime marka intaa ka nimaadno waxaa jira isbedel ka dhacay dhanka wasiirada muddo kooban weliba iyadoo wasiirkii ugu dambeeyey hadda uu hayay muddo gaaraysa 2 bilood bal isbedelka wasiiradu miyaanu saameyn ku yeelanayn shaqada wasaaradda runtii horta isbedelka wasiiradu wuxuu ku yimaadaa rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan isaga ayaa dastuurku siinaya isagaana gaar u tahay awoodihiisana ay ka mid tahay runtii waan isleeyahay mararka qaar way ku keenaysaa mararka qaarna kuma keenayso qofka loo xulay marka uu yahay qof fahmi kara ama aqoonteedii leh in uu la jaan qaado wixii socday halkii ay taagnayeenna ka sii wado waxa weeye mid muhiimadeeda leh oo aan wax badan oo dhibaato ah keenin laakiin haddii qofku aanu fahmayn halkii ay wax taagnaayeen taasina dhibaato keenta marka waxay u badan yihiin wasiiradu dad fahmaya halkii ay wasaaraddu joogtay iyo halka ay u socotay iyo sida loogu siiyey waayo sidaan kuu sheegay marka laga yimaado xeerka ay ku aasaasan tahay wasaaraddani oo ah xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha dowladda ayaa xusaya waxa laga shaqaynayo oo sheegaya wasaaradani waxay u xil saaran tahay arrintaa iyo arrintaa iyo arrintaa iyo arrintaa iyo arrintaa iyo arrintaa iyo arrintaa markaa wasiir kasta oo yimaada marka uu akhristo ama agaasimo guud oo yimaada wuxuu garanayaa waxa waajibaadka laga rabo ee madaxweynuhu soo dirtay waxaa soo raacaya barnaamijkii xisbiga kulmiye oo ah wasiirku cidda ku hagta wasaarad kasta barnaamijka xukuumadda ama madaxweynihii soo doortay iyo xisbigii uu madaxweynahani ahaa halka uu dalka doonayo inuu u jiheeyo gaar ahaan wasaaraddan dhalinyarada ciyaaraha halkuu u dhaqaajinaya barnaamijkana markuu akhristo wuxuu garan karaa wasiirku in uu fahmo waxa looga baahan yahay ama uu qabto waxaa soo raaca siyaasadihii oo siyaasaddii dhalinyaradu ayaa sheegaysa iyaduna wax kasta oo arrimaha dhalinyarada laga qabanayo oo ay including ku jirto ciyaaruhu iyaduna waa fari ka leed waxaa intaa soo raaca qorshaha horumarinta qaranka somalilan oo isaguna wasiir kasta iyo agaasimo kasta iyo mas-uul kasta inuu ku shaqeeyo ay tahay qaranka somalilan halkee uu imika taagan yahay arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaruhu halkeese la doonaya in la gaarsiiyo outcomes waxa la yidhaha baa jira oo ah waxaa la doonayo waxaa la qabanayaa natiijada la doonayo in la gaadho ama goolka la doonayo in laga gaadho 15% in la yareeyo shaqo la-aanta 5 sano ama ka soo qaad in xirfadaha shaqo abuurka 1% halkan ay maanta taagan yihiin 10 ama 20 kor loo qaado marka qof kasta oo aqoon leh wuxuu garan karaa
waxa loo soo dirtay inuu ka shaqeeyo waxa hagaya dhammaan shuruucda dastuurka u horeeyo xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda uu leeyahay waa administrative law ka labaad uu yahay ka saddexaad uu yahay siyaasadda ka afraad uu yahay ka saddexaad uu yahay barnaamijka xisbiga kulmiye ka afraad uu yahay siyaasadda ka shanaad uu yahay qorshaha horumarinta qaranka waxaas oo dhan marka uu kaashado wasiirkaas iyo xeerarka ama guidelines-ka kale ee wasaaraddu leedahay marka uu eego wax allaale iyo wax dhibaato ah oo ay ku keenayso wasiirka cusub inuu fahmo shaqadiisii ma jirto dabcan haddaynu isla su-aashaas aynu dabagalno bulshada waxay isweydiinaysay khilaafaad baa u dhexeeyey wasiirkii ugu dambeeyey iyo weliba sidoo kale agaasimaha guud ee cabdirashiid caydiid arrintaas maxay kaga jawaabeysaa waxba kama jiraan wax allaale wax ka jiraa ma jiro mas-uulkaasi wuxuu ahaa mas-uul aan wada shaqaynay muddo yaroo kooban oo 3 bilooda wax khilaaf ah oo naga soo baxay ma jiro oo dibadda nooga soo baxay ama jirayba wax khilaaf ah ma jirin waxaan u malaynayaa inay ku timid rabitaanka madaxweynaha inuu bedelkiisu marka wax allaale wax khilaaf labadeedna dhex maray ma jira ciiso dabcan waayahay intaas hadan kaga dhimaadno agaasime waxaa jira tartankii gobolada Somaliland oo imika ay ugu dambeysay markii ugu dambeysay la qabto 2020 tartankaas qudhiisa bal goorma u qorshaysan qabataan iyo tartanka xog ugu dambeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal wanaagsan oo la isweydiinayo horta tartanka ciyaaraha goboladu 3 sano oo kaliya ayuu si joogta u qabsoomay 2002 2003 2004 waqtiyada kale uu qabsoomay waxa kamid ah 2007 2011 2013 2016 2020 waad garan kartaa muddooyinka waxyaabihii u dhaceeyay dalku waqtiyada doorashooyin ama abaaro ayaa dhacayay oo arrimo duruufo waaweyn oo dhacayay baa jiray 2020 ciyaaraha goboladu waxay iska wataan dhibaatooyin badan dadkeenu waa caatifiyiin gobol waliba waxa uu jecel yahay inuu soo gaaro meesha ugu dambaysa gobol waliba waxa weeye taageerayaashiisu xitaa xukuumadda dawladda mas'uuliyiinta ku jira kala safta oo waxa weeye nin waliba gobolkiisa soo raaca gobolkii waxa soo raacaya mas'uuliyiintii gobolka waxa soo raacaya dadweynihii magaalada joogay ama goboladooda ka imanayay cadfad badan bay abuuraan waxay abuuraan rabshado kuwa doorashooyinka la mid ah marka waxaanu sameynaynay daraasad bal sidii loo yareyn lahaa rabshadaha runtii unfortunately iyadoo aanan ciyaarihii gobolada kaba takhalusin oo aanan joojin haddana waxaa noo bedelay championkii oo aad ogtahay 2022 iyo 2023 ba 2021 iyo 2022 in la qabtay oo isaguna kooxihii horyaalada ku guuleystay waa arrimahan oo kale waa laga kaaftoomay laakiin in aanu qabano qorshihiisii waanu ku jiraa sidii uu si joogta u noqon lahaan aan u samayno miisaaniyadiisuna ay ku jirto mar walba muxuu ahaayey miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolada ee aanu qabanaynay hal sano mooye inta kaleba dawladdu kab bay noo siinaysay marka hal sana miisaaniyadda lagu daray sanadkii labaad oo lagu daray waxaa looga saaray dhibaatooyin waaweyn oo dhacay oo ay abaare iyo kamid ahaayeen dadkiioo biyo doonaya oo baad doonaya oo xoolihii ka baktiyayaan in xaggan ciyaaraha waa la fududeeyey marka waxaan odhan karaa qorshe fiican oo ay ciyaarahaasi maintenance ama ay sustainability ay ku waari lahaayeen ay ku joogi lahaayeen in ayaanu gacanta ku haynaa hadii alla yidhaha insha allah bismillahi alkariim waxaa kaloo da inoo dheer in imika somaliland goboladeedii bari lagu soo duulay oo cadowgii somaliland ay kusoo duuleen oo gobolada qaar ay muxuu ahaayey ay dad argagixisa ah iyo cadowgii somaliland ay qaarkood ay imikada shaqaaqooyin ka wadaan oo ay ka jiraan marka arrimaha ayaa arrimo kale oo aan isu leegayno markay naga dhamaadaan inaanu qabano dabcan bulshada waxay isweydiinaysaa agaasime tartanka gobolada ma waxaa lagu bedelay tartanka horyaalada ee Champions League ma laguma bedelin tartanka gobolada waa sidiisii tartanka horyaalka championkuna waa sidiisii si gaarun waa separate oo laba kala duwan wey laakiin
ciyaaraha gobolada duruufaha ku xeeran duruufaha insha allah inaanu ka kabanno ayaanu rajaynayna insha allah bismillahi alkariim. waa tahay agaasime haddaan weli waxaan ku guda jirnaa tartamadii horyaaladii waxaa jirta dhalinyarada gobolka awdal cabasho ay muujinayeen taasoo ay ka muujinayeen garoonkooda aan taysnayn arrintaas laftarkeeda maxaa ka odhan? runtii garoonka waxaa la dhigay rooga 2015 garoonkii ugu horeeyey ee somalilan roog la dhigaa wuxuu ahaa garoonka Hargeysa Stadium, waxaa ku xigay ka Gabiley, waxaa ku xigay ka Boorame, ama waxaan odhan karaa ka Boorame kii labaad ahaa. runtii roogii ugu tayada xumaa roogagii garoomada la dhigay dowladda kulmiye intii ay jirtay waa madaxweyne Axmed Siiraan iyo Muuse Bixi. waxaa la dhigay 7 gobol ee ugu waaweyn waa Maroodi Jeex oo Hargeysa ah, waa Awdal, waa Gabiley, waa Sool, waa Sanaag, waa Togdheer, waa Saaxil. intaba caasimadaha artificial roogii baa la dhigay. ma jiro dalalka jaarkeena ah oo 7 garoon artificial grasska u yaalo iyadoo ay aqoonsan tahay FIFA oo ay dhigtay roogaga badankooda garoomada. Soomaaliya 2 garoon buu yaallaa, 3 garoon buu yaallaa, 2 garoon ee Muqdisho iyo Garowe. Jabuuti 4 garoon buu yaallaa, Ethiopia 3 garoon buu yaallaa, Kenya 4 garoon buu yaallaa. Somaliland waxay nasiib u heshay in ay 7 garoon artificial grasska u yaallo oo laga dhigay cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan, oo laga dhigay miisaaniyadda xukuumadda, oo laga sameeyey miisaaniyadda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoo dadkii si fiican loogu soo celiyay. waa chance weyn oo dowladda kulmiye ay siisay dhalinyarada Somaliland. garoonka Boorame kuwaasuu ka mid ahaa. unfortunately ciddii qadaraaska markaa qaadatay roogii ay keeneen iyo ciyaaraha gobolkaas oo kaga batay garoomada kale way xidhan yihiin in ay aada loogu ciyaaro, subaxii lagu ciyaaro, galabtii laga ciyaaro. waxaanu ka garaabaynaa roogaasi inuu imika inkastoo lagu ciyaari karo laakiin uu yahay bedel. cabashadii dhalinyarada waanu maqalnay, waanu dhagaysanay, waananu la qaadanay. marka waxaanu imika gacanta ku haynaa sidii garoonka dayactir loogu samayn lahaa, hadduu noqon lahaa taarkiisa, hadduu noqon lahaa qolalkii labiska, hadduu noqon lahaa kaabadaha, haddii uu noqon lahaa gidaarada u dumay, hadduu noqon lahaa rajeediisa, dayactirkiisii baanu gacanta ku haynaa. waxaa kaloo aanu samayn doonaa sanadka cusub inaanu isagana roogi dhigno. marka cabashadooda waanu tixgelinay, waananu dhagaysanay, waananu fulinayna insha allah bidmillah. waa tahay agaasime khilaafaadka dhalinyarada haddii aan su-aashaan dib ugu noqdo, khilaafaadka dhalinyarada ma khilaafaad u dhexeeya wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada mise waa mid mas-uuliyiinta gobolkooda iyaga ka dhex taagan sababta uu qorsan waayey horyaalka? ma jiro wax mas-uuliyiintu ay shaqo ku leeyihin. mas-uuliyiintu gobolku waa mas-uuliyiin mudakara, waa mas-uuliyiin hay-ad kasta oo dowladeed waxa ay ka fulinayso gobolka ku gacan siiya isla markaana ku haga. hadduu yahay badhasaabka, hadduu yahay taliyaha qaybta, hadduu yahay maayarka, waxay mar walba nala fuliyaan wasaaradda ciyaaraha danay gobol kasta. mas-uuliyiinta jooga ee badhasaab leh, ee maayar leh, ee taliyo qaybeed leh, hawsheedu siday u fududaan lahayd. khilaafkani waxa uu ka jiray wasaaradda iyo ciyaartooyga gobolka. ma ahayn khilaaf, cabasho. arrintaasi cabashay ahayd, way cabanayeen, waxay ka cabanayeen kuma ciyaari karno. markaanu arrintii la eegnayna waxay noqotay in aanu toodii qaadano. marka waanu tixgelinay, waanu ka qabanana insha allah bidmillah alkariim. hadal baa jiray isaguna u dhignaayo bulshadu dhex maraysa oo ahaa in kooxihii heerka koobaad la bedelayo oo wasaaradda ay bedelayso kooxo kale keenayso. arrintaa laftarkeeda miyay jirtaa? waxba kama jiraan hadda waqti hore ma sheegayo, hadda waxba kama jiraan insha allah bidmillah alkariim. waxba kama jiraan hadda, kooxuhu sidoodii bay ahaanayaan. maxaad ka qorshaysan waayey horyaalkii gobolka Awdal? horyaalkii gobolka Awdal cabashada kooxaha kubadda cagta ee gobolkaas ayaanu aqbalnay oo yidhi kuma ciyaari karno ilaa roog cusub la dhigo. marka toodii baanu u maqannay. oo labadii kooxood ay kasoo qayb geli lahaa horyaalada oo soo waqtigiisu taagan. waxaanu u tixgelinaynaa labadii kooxood ee sanadkii hore ku guuleystay inay kasoo qayb galaan insha allah. oo sanadkaa la baajiyo horyaalkii gobolka. horyaalkaasi wuxuu u baaqday garoonkaas oo ay ku qanci waayeen dhalinyaradii inay ku ciyaaraan. iyagay ka timid, annagu waxaanu arkayna in lagu ciyaari karo, laakiin rabitaankooda ayaanu tixgelinaynaa haddaanu nahay wasaaradda dhalinyarada ciyaaro.
waxaana championka ka soo qayb galaya kooxihii hore ugu guuleystay tartankii u dambeeyay la qabto wax dhibaato ka jirtaana ma jiro agaasime tartankii isaga laftirkiisa horyaalada koormo qorshaysan inay qabataan si magaalada lagu qabanaya insha Allah bidmillaah alkarim magaalada Berbera lagu qabanaya waxaana la qabanayaa insha Allah January dabeeqadeeda bisha koobaad ee sanadka dabeeqadiisa la qabanaya waxaana lagu qaban doonaa magaalada Berbera weli waxaan ku jirnaa su'aalaha u badan horyaalka caasimadda laftirkiisu hakadayu galay walo loo balansan toddobaad ka hor la ciyaaro laftirkiisa maxaa baajiyay horyaalkaas arrimo farsamo baajiyay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan buu ugu bilaabmi doonaa waxa haray 3 week waxa soo qabsoomay 15 week waxa la soo ciyaaray 15 week marka 3 toddobaad baa haray sida ugu dhaqsaha badan uu qabsoomi doonaa arrimo technical ah oo xagga xiriirka ka qabiya ah ayaa jiray marka sida ugu dhaqsaha badan buu qabsoomaya waa tahay iyadoo ay jirto in dhaqaale la'aan loo sheegin horyaalkaas u baaqdo horyaalka caasimadda oo ay xiriirku ka cabanayeen arrintaas ma jirta waxba kama jiraan dhaqaaluhu dawladdu tartamada horyaalada sanadkii hore iyo sanadkii ka sii horeeyay 3 sano oo xiriir ah si fiican baa loo bixiyay sanadkan duruuf ayaa jiray kharashaadka meelaha qaar waa la dhimay tartamada qaar oo kharashka la dhimay ay ku dhaceen oo markii aanu aragnay aanu anaguna yaraynay baa jira laakiin wax duruuf ah oo dhaqaale la'aan ma jirto insha Allah bidmillaah alkarim tartamadaasina way qabsoomayaan waqtiga rasmiga ah ee la qaban karo dib loo ciyaaro koox 3 kulan ee harsan horyaalka caasimadda imika waxaan noo socdo kulamo anagii xiriirka kubadda cagta aanu leenahay marka kulamadaas markaanu gabagabaynaanu shaacin doonaa xilliga rasmiga ah ee ay bilaabmayaan waayo waxa jira arrimo farsamo ahaan ay xiriirka kubadda cagtu soo gudbiyeen in ay caqabado yaryar ay jiraan caqabadaha waanu ka wada fadhinaa waanu wada xallinaynaa markaanu dhammaysano sida ugu dhaqsaha badan ayaanu u soo sheegaynaa in ay qabsoomaan waxaan ku rajaynahay in aynay waqti badan qaadan doonin insha Allah dabcan weli waxaan ku guda jirnaa horyaalkii su'aalihii ku saabsanaa waxaa jirta in garoomada horyaalada kala duwan oo ugu dambeeyay garoonka Gabiley inay ka soo muuqanayaan shaqaaqa u dhaxaysa ciyaartooyda iyo garsoorayaasha arrintaasi oo lagu sababeynayay in ay tahay amni darro dhanka ka timi wasaaradda taa laftirkeeda maxaa idinka qorshaysan garsoorayaashaasi ciyaartooyda ay helayaan horta ciisow amniga wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu ma xil saaran Blaiskuna way yimaadaan meel kastana shaqaaqadu way ka dhacdaa ma laga daba tagay oo wax ma laga qabtay ayaa mas'uuliyadda ugu weynaayta dambi ma dhici karaa haa u dhici karaa garoomadu ka dhici karaa suuqu ka dhici karaa dilal baa dhaca oo Soomaaliland gudaheeda ka dhaca laakiin sidee wax looga qabtay ayaa muhiimaddu ay tahay dabcan ama ciyaartooy ha noqdo ama daawadayaal ha noqdaan falal aad u fool xun oo garoomo ka dhacay way jiraan waxaana banaanka soo dhigay baahintan ciyaaraha ee imika aynu baahinayno garoomada awalba way ka dhici jireen kuwa ka daran laakiin wax ma laga qabtay haa ciyaartooy baa lagu ganahay dad taageerayaal baa lagu xidhay dad baa maxkamad lagu geeyay waxbaa laga qabtay si wanaagsan baa wax looga qabtay marka way jirtaa inay falal noocaas oo aad u yar Gabiley mid baa ka dhacay sanadkii tagay 2 jeer bay Hargeysa ka dhacday ma badna falalka dhaca bal qiyaas ciiso adigu waxaad ka mid tahay wariyaasha ciyaaraha tabiya 9 ciyaarood buu ka kooban yahay horyaalka heerka koobaad heerka labaadna 9 ciyaarood buu ka kooban yahay heerka saddexaadna 110 ciyaarood buu ka kooban yahay waa Hargeysa waa 390 ciyaarood 390 ciyaarood markii 2 ciyaarood ay dhib yar ka dhacaan ama 3 ciyaarood ay ka dhacaan marka waa wax dhaca waana dhici doonaan horena way sii jireen imikana waxa muujinaya kamaradaheena iyo baahinteenan waxaan ku sheegayaa in ay Somaliland tahay geeska Afrika ama Afrika gabigeedaba dalka kaliya ee 7 horyaal oo kubadda cagti 7 horyaal ma Gabiley waa 2 horyaal iyo B Saaxilna waa 2 horyaal Togdheerna waa 2 horyaal Sanaagna waa 2 horyaal oo A iyo B ah iyo 3 horyaal oo Hargeysa ah waa dalka kaliya ka qabsadaan 7 horyaal oo heerka koobaad waa dalka kaliya ee si toos ah loo baahiyo horyaalka
kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee dalka Djibouti live looma baahiyo horyaalka Ethiopia live looma baahiyo ka Kenya miyaa daawatay wariyate horyaalka heerka koowaad ee kooxaha Kenya sanad walba uu qabsooba live miyaad u daawataa maya ka Soomaaliya ayaa jira wax live ah waxa Somaliland laga baahiyaa 7 gobolba ciyaarahoodii waxaan oran karaa cid inagaga horeysa kubadda cagta Afrika aad u yartay mana nihin dalalka ay FIFA maalgeliso dalalka adduunka ay gacan qabtaan waxa lagu gaaray rabitaanka iyo tixgelinta uu siiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 7 garoon baa roog yaala 7 garoon baa horyaalkoodii la baahiyaa ciyaartooygeennii baa la kala iibsadaa maanta halka ay marayaan waxaan oran karaa waa meel in Afrika ugu faani karo anagoo su-aashaasi maxay tolay si faaqideena waxaa jirta iyaduna arrin kale oo jirta oo ah in ciyaartooy dhalinyarada ku ciyaaraysa garoonka ay la kulmaan xaalad caafimaad oo degdeg ah iyadoo aanu ka soo muuqan horyaalka caasimadda iyo garoonka Hargeysa ambalaaska adeega degdeg ah arrintaa laftirkeeda bal maxaa ka wasaarad ahaan idinka qorshaysan wasaaradda horumarinta caafimaadka oo nuga mahad celinayna ayaa u xil saaran arrimaha caafimaadka waanu gaarsiinaa in ay yimaadaan waad ogeyd sanadadan iminka ay ciyaaraheenu jireen dalka waxaa ku soo kordhay xanuuno waaweyn oo uu ka mid yahay xanuunkii COVID-19 waxaa jiray xanuunkii kududii waxaa jiray xumadii wasaaradda caafimaadku oo hadda taagan wasaaradda caafimaadku waxay heegan u tahay xanuunadaasi waxay ku dhacayeen inta badan dad aad u waaweyn oxygen u baahan oo la badbaadinayay waxaa jiray dagaaladii iminka nagaga socday sanadkan intii uu jiray bariga ama gobolka Sool oo wasaaradda caafimaadku ciidanka qaranka ay heegan u ahayd gooja cadde lagu daweynayay oog lagu daweynayay burco lagu daweynayay Hargeysa loo soo dhaafinayay dibadda loo qaadayay arrimahaas oo culaysyo badan leh iyadoo taasi jirto haddana inta badan way jireen in ay ambalaasyadu imanayeen marar aanay jooginna way jireen oo aad u yar gaar ahaan garoonka Hargeysa Stadium oo ah garoonka kaliya ee caasimadda ee horyaalada lagu ciyaaro heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad inkastoo ay caawisay lighting systemka habeenka la ciyaarayo oo aan Afrika meel laga ciyaaraa ayarti in muxuu ahaaye ay garoonka duhurka la ciyaaro ay kooxaha heerka saddexaad ciyaaraan marmar injiri ay ku imanayeen laakiin mar walba waxaa taagnaa gaadiid wasaaraddu leedahay oo qaadayay ciyaartooyga oo geynayay dhakhtarrada oo aanu uga mahad celinayno wasaaradda caafimaadku in aanu markaanu isbitaalada soo gaarsiinay si fiican noola shaqeynayeen waanu isku daynay inaanu wasaarad ahaan iibsano gaadiid ambalaasi ah oo gobol walba iyo garoomada jooga noomay suura gelin laakiin weli waanu wadnaa maadaama dalku sanadkan uu galay cadow badan oo isu soo kaashaday oo dagaal ku soo qaaday dagaaladaasna ay dhaqaalihii dalka ee horumarka qayb ka mid ah loo jeediyay si dalka loogu difaaco waayo wax walba waxa ka horeeya qarannimada iyo jiritaanka Somaliland marka difaaca dalka ayaa wax walba ka horeeya laakiin waanu isku dayeynaa inaanu yeelano meel fiican way marayaan wasaaradda caafimaadkana waanu uga mahad celinayna waa saxagaasi waxaad sheegtay in aad ku qaadaan gaadiid ay wasaaraddu heegan u ah dhalinyarada garoonkaasi ku ciyaaraysa taasi miyaanay ka habbooneyn adeeg degdeg oo ku diyaarsan garoonka laftarkiisa horta gaadhiga ambalaaskii waxba ma qabto gaadhiga ambalaasku wuxuu sahlaa un qaabka loo qaadayo laakiin garoon kasta oo lagu ciyaarayo waxaa jooga shaqaale caafimaad oo u sameeya gargaarkii degdega ahaa ayaa jooga oo aanu gunnooyin ku siino garoon kasta oo lagu ciyaarayo waxaa jooga shaqaale caafimaad gaadiidka ambalaaska hadduu maqan yahay gaadhigan kale ma uu qaadi karaa marka gaadiidkan wasaaradda ee aanu garoonka dhignay marka ambalaasku howlaha adag uu ku maqan yahay waa mid gaadhsiinuuna waanaad arkaysaa intay isu jiraan dhakhtarka weyne Hargeysa iyo garoonka Hargeysa Stadium 1 kilomitir iyo wax yar weeye 1 kilomitir weeye markaynu eegno labada goobood intay isu jiraan ugu dambeyn agaasime waxaa jira dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta oo qaarkood ay safarro u aadaan si ay wadamada jaarka u soo ciyaaraan
oo ay sheegaan in ay ka kubad wanaagsan yihiin halka ay ku nool yihiin. taa laftarkeeda ka wasaarad ahaan maxaa ka leedahay arrintaas? ma jirto ciisow way jirtay 3 sano ka hor ama 4 sano ka hor in ciyaartoy reer Somaliland ay u ciyaartay jireen ama ay qaadan jireen hadiyada xamar laakiin imika kuwii xamar baa anaga saf noogu soo jira waanu nidhaa nooma iman kartaan waxaa jira ciyaartooyga ka ciyaara horyaaladeenna waxay badan yihiin kaliya shanaad marka waxaan ku leeyahay meel inaga kubad horumarsani ma jirto anigu Djibouti baan tagay Ethiopia waan tagay Kenya waan arkay dhammaantood waxay ma jiiranayaan Soomaaliya hadda horyaaladeenna aad leedahay 2 usbuuc bay istaageen waxayna leeyihiin sii daaya social media ha eeg waxay ma jiiranayaan ciyaaraha Soomaaliland baa la ma jiiranaya waxa ay jecel yihiin ciyaartooyga geeska Afrika inay ka ciyaaraan ciyaaraha Soomaaliland aad bay u ma jiiranayaan marka waxaan leeyahay meesha ugu quality-ga ama ugu sarreysa waa Somaliland habeen baa laga ciyaaraa 7 garoon baa artificial grass leh 7 garoon baa la baahiyaa ciyaarahooda kama soo helaysid dalalka ay FIFA caawiso way isku tashanay waxaan uga mahad celinaynaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo howlwadeennada wasaaradda ka shaqeeya oo garanaya waajibaadka ay wasaaradda leedahay iyo sidii loo gaarsiin lahaa halka uu madaxweynuhu doonayay in la gaarsiiyo agaas ma waxa jirta sidoo kale badanaa in la yiraahdo khilaafaad baa ka dhex taagan wasaaradda iyo xiriirkii bal arrintaas laftirkeeda maxaa kaga jawaabaysa? waxba kama jiraan wasaaraddu iyada abuurtay xidhiidhada waxay ku jiraan rabitaanka wasaaradda ay xidhiidhadana ku jiraan xidhiidhada kirada xafiisyadooda wasaaradda bixisa gunooyinkooda mushaharooyinkooda wasaaradda bixisa waxay bixisaa wasaaraddu shidaaladooda waxay bixisaa kharashaadka ay tartamada ku qabtaan waa hooyadii quudinaysay hooyadu ilmaheeda ma idishaa ma disho hooyadu waxba kuma samayso way jeceshahay inay koriso anigu waxaa ii gaaraa xidhiirka kubadda cagta dastuurkiisa anaa qoray dastuurka xidhiirka kubadda kolayga anaa qoray dastuurka ciyaaraha fudud anaa qoray sharciga ciyaaraha kubadda cagta lagu dhaqaa anaa qoray garsoorka anaa tababaray jaangoynta kooxaha anaa sameeyey waxaan ahay mas-uulka labaad ee wasaaradda laxajaclo badan baa naga haysaa mandatekoodu waa inay ciyaaraha fuliyaan annaguna waa inaanu iyaga quudinno accountable baynoo yihin annaga cidda la xisaabtamaysa ee hadday wax qaldaan toosinaysaa waa annaga waayo annagu waxaanu ku shaqaynaa siyaasadda madaxweynuhu wuxuu soo dirtay wasiirka iyo agaasimaha guud siyaasaddiisaanu ku shaqaynaa cid kasta oo naga hoos shaqaysana waa inaanu siyaasaddeeda ku agnaa kharashka loo dhiibay inay sidii ugu habboonaa ku bixiyeen wixii loogu talagalay inay ku bixiyeen inay sidii ugu wanaagsanaa u qabteen inay sidii ugu kharashka yareed u qabteen in sharciga ay ciyaaraha ku maamulayaan ay sidiisii u fuliyeen miyay baalmareen waa dad annagu aan la xisaabtamayno sida annaga madaxweynuhu noola xisaabtamayo markaa wax khilaafaada oo haba yaraatee jira ma jiraan si wanaagsan bay u socdaan waana uga mahad celinaya xidhiidhada kala duwan inay shaqo fiican qabtaan xidhiirka kubadda cagta xidhiirka kubadda kolayga xidhiirka ciyaaraha fudud inay si wanaagsan u qabtaan weliba waxaan aad iyo aad u ammaanayaa xidhiirka ciyaaraha fudud oo 2 tartan oo waaweyn sanadkan soo gudbiyey in aanu wixii hore wax ka bedelo aanu qabanno tartan international ah oo 12 kilomitir ah ayaa February sanadkan lagu qabtay Berbera oo ay 4 dal ka soo qayb galeen 6 dal baan casuunay 2 naga maqnaaday tigidhadoodii naga u diray bishii June waxa aanu ku qabanay Hargeysa sidaad ogeyd 9 dal baa ka soo qayb galay 10 orodyahan oo ajaanib baa yimid Angola ka mid ahayd Gabon baa ka mid ahayd Burundi baa ka mid ahayd Chad baa ka mid ahayd Cameroon baa ka mid ahayd Ethiopia ka mid ahayd Sudan baa ka mid ahayd Djibouti baa ka mid ahayd so many waxaa yimid mas-uuliyiin si fiican bay xiriirkaasina u shaqeeyeen xiriirka kubadda cagtuna waxyaabaha aan horyaaladeen iminka sheegayn oo dhan cidda fulisay hagaysay fulintiisa hagaysay ayay ka ahaayeen 4 tartan ayay sanadkan ka qayb galeen ciyaaraha fudud 3 tartan oo caalami ah oo Djibouti ka dhacay iyo December 29 waxa baxaya hal orodyahan iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda ciyaaraha fudud oo u baxaya Angola
oo magaca Somaliland geynaya tartan ay ka soo qayb galayaan 8 dal orodyahannadoodii ay ka soo qayb galayaan ay calanka Somaliland oo la geynaya orodyahan reer Somaliland oo ka qayb galaya marka waxaan oran karaa meel fiican baa laga gaaray waxa soo kordhay tartankii shaqaalaha dawladda oo saameynta u yeeshay aad ogti tartankii jaamacada iyadoo dalkeena aad arkayso in la isu soo kaashado cadow badan uu jiro haddana waxyaabo badan baa la soo kordhiyay marka waxa tartama cid fulinaysay anagu qorshihiisa iyo nidaamkiisa aan leenahay wuxuu u baahan yahay inaan bixinaynaa cid fulisa wax xidhiidhada oo nuga mahad celinaynaa inay si wanaagsan u shaqeeyeen qof kasta oo technical gacanta ku hayana waxyaabaha qaar baa ka qaldamaya laakiin qaladaadkoodu wuu yiri meel wanaagsan wax noo marayaan khilaaf ma jiro si wanaagsan bay u shaqeeyaan xidhiidhada dunida waxa maalgeliya FIFA kubadda cagta dalka Djibouti kubadda cagta Soomaaliya Ethiopia lacag waafiya baa la siiyaa sanadkii annagu waxaan u buuxinay kaalinta iyo kaalmo ka weyn marka si wanaagsan bay hawluhu socdaan su-aasha ugu dambeysa ee aan ka agaasimahan ku siinay waxay noqonaysaa sanadka 2024 maxaa ka wasaarad ahaan idinka qorsheysan ciyaaraha dalka intii aanu wadnay iyo in aanu ku sii darno inta aanu wadnay oo la isla yaqaano iyo in kale oo aanu ku sii darno waxaanu soo bandhigi doonaa insha Allah bismillaahil kariim bisha koobaad ee sanadka qorshaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo aanu saxaafad ahaan idin la wadaagi doono idinkana aanu jecelnahay inaad baahisaan iyadoo weliba aan jecelahay kusii weydiiyo horyaalada soconaya ma sii joogto ma noqon doonaan ilaa intay jirto Somaliland meel allaale iyo meel looga leexanayaa ma jiro sababtoo ah ma aha wax inooga yimaada meel kale FIFA ka yimaadaan oo way naga xidhmayaan la oran maayo qaramada midoobay baa si soo baa la joojin doonaa la oran maayo midowga Yurub baa siiyo oo waa la joojin doonaa la oran maayo Ingiriiska ama Denmark ba ku caawiya ama Mareykan la oran maayo waxa laga bixiyaa miisaaniyadda xukuumadda oo ah cashuurta ay muwaadiniintu bixiyaan inta ay Somaliland jirto way jirayaan tartamadaas iyagoo joogta ah waana waxa kaliya aan ku faani karo waa waxa kaliya abaal loogu haynayo waxyaabaha abaalka weyn loogu haynayo ay dhalinyaradu inay ugu hayaan bay kamid tahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa oo annaguna ku shaqeyno rabitaankiisa iyo tixgelintiisa iyo mudnaanaha meelaha uu siiyey mudnaanta uu wasaaraddan siiyey iyo tixgelinta uu siiyey iyo rabitaankiisa uu doonayo in ay halkaa gaadho ayaanu annaguna ku shaqeynaa oo fulinaa marka waa abaal weyn oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku leeyahay dhalinyarada Somaliland waana jiraysaa hadduu joogo iyo haddii uu ka tagaba wax jiraya weyn waa tahay intaasi waxay nooga waraysi gaar ah oo aan la yeelanay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdirashiid Caydiid Yaasiin aad baan kaaga mahadcelinayna soo boqoshada iyo aqbalada waraysiga aad u mahadsantahay